walaal magacay waxa la yiraahdaa Argoof Maxamed Barre waxaan hadda joogaa Farshanno waagi hore waxaan joogi jiray meelaha cadaga gabagabo yar iyo bahalay iyo meelahan joogi jiray orgi baa ii shaqayn jiray orgi wuxuu soo tuuri jiray 50 60 buluug cadaan dhukko kuwa leh soo tuuri jiray adaa leh baa ku qoran jiray adduunka waa isbedelay waagi hore dawladda ay ku shaqayn jireen saasa loo oran jiray dadku hadda waa la warqab jiray hadda waxaan si duwan mayo waa la nabdoon yahay ilaaha ma hadda iskale ariga meesha maray adigu hadii dhaqanka waa isaga muhiimad waxay dugsataa waa isaga geerina hadda waxa aniga iga haray 4 neef baa iga joogta hadda 4 halaad baa ii joogta afartaas waxay ku nooshahay waxba ma garanayo aan ku nooshahay geedkina waa la dhameeyay waxa kale oo taakula male sabartii roobkana waa iska yar yihiin hadda waxaan sugaynaa deeq ilaahay miyiguna waxa ku noolaan jiray oo dadku dabala miyi magaalo dhisma dhigan jiray suuqa caanaha haddana caanaha iyo kombada caanaha waxa bedeshay xil waa bedeshay doorashooyinka ama dalka ha ahaato ama dadka ha ahaatee in la soo dhaweeyo waa u baahanahay dadka baadiyaha jooga waxayna doonayaan wax badan oo jiray inay wax iska bedelaan diyaar bay u yihiin inay wax doortaan diyaar bay u yihiin inay hal qof iyo hal cod helaan diyaar bay u yihiin inay ciddii ay rabaan la soo baxaan markii doorasho timaado iyo musharax waxay u soo qumeen aayihii hore ay ku jireen ka bedelan inay helaan adeer isinku marna waa waxaan laga maarmin laakiin waana lagu talagalay waana la doortay laakiin waxaan kuu sheegayaa rajada aqbaa waxay tahay inay khayr isbedela ka helaan ummaddu doorashada maanta socota